shacabka ku dhaqan degmada Qorlugud ayaa si qurux badan u soo dhaweeyay waftigii ballaarnaa ee ay hogaaminayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ayaa muujiyay inay taageero buuxa u yihiin xukuumadda iyo xisbiga Kulmiye iyagoo soo buux dhaafiyay wadooyinka si mudaysan kor ugu taagay calanka qarankeena Soomaaliland iyo calanka xisbiga Kulmiye. waxaa warbixin lagu wada qancay oo iftiiminaysa socdaalka wafdigan ballaaran halka ka soo jeediyay gudoomiyaha ahna musharax xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi isagoo dadkii abaartu saameysayna halka uga duceeyay in Ilaahay ka kor qaado abaaraha baan ee dalka ka jira. Reer Qorlugud aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta ay maanta oo dhan ka taagnaayeen shacbiga inta leeg ee ay sugayeen ilaa gobolka ugu dhacay iyagoo cirroole iyo caruur rag iyo dumar bacadka taagnaa aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa annagoo madaxweynaha ka wakiilay soo halkan fadhiya aad iyo aad baan ka mahadnaqnaa jazaakumullahu khayr. talabaad waftigana wuxuu ahaa gurmad abaaraha in la taakuleeyo dadka dhulkaanu soo marrayna waxay dhaayagaanu ku soo aragnaa wixii jiray waxaananu ku soconnaa in la helo qorshe haddii aan la yidhaahdo dayr dabadeed baynu joognaayo jiilaalku dheeraado dadka wixii loo qaban lahaa iyo qorshihii dheeraad sidii loo arki lahaa ee loo soo darsi lahaa madaxweynuhu socday. waxaa kaloo nuu soconnay maanta dadka tabaalaysan wixii laga qabanaya in aad iyo aad loogu dadaalo. madaxweynuhu wuxuu waday dhammaan wasaaraddiisii howlaha ku shaqo lahaa kii miisaaniyadda wasiirkii maaliyadda wasiirkii caafimaadka wasiirkii xanaanada xoolaha wasiirkii beeraha wasiirkii gaashaandhigga oo haddii ciidamadii loo baahdo ahaa wasiirkii daakhiliga oo amnigii iyo xarumihii wixii leegi lahaa eego dawladdii oo dhan oo guulaysuu madaxweynuhu hogaaminayay si dhammaan wixii awaamira u baahda halkooda loogu bixiyo oo aan meel dambe iyo hebel waraaq loo diriya haloo yeedhaalay noqonin. wixii qorshe ahaayee maanta loogu talagalay waa la gaadhsiiyey haddana wuu socdaa qorshihii. waxaa kaloo nala socda oo madaxweynaha la socdo wafdiga guddidii taakulaynta abaaraha ee heer qaran oo ay hogaaminayaan culimada iyo ganacsatada iyo xukuumaddu waa u dhammaayeen ayaa wakiil ka socda joogaa oo wixii la qabanaya uu kormeerayaa waxa la hayana uu soo daynaya kolba halkii ay baahidu badato. walaalayaal reer Qorlugud waxaa laydinka mahadnaqayaa sida wacan ee aad uga qayb qaadateen taakulaynta dadka soo guuray ee abaaruhu soo rareeladii soo hayaamay sidaa wix uga qaybsateen naf iyo maal aydaan waxba uga hagran ee wixii ahayseen baa ula eegtana aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. waxaanu idiin sheegaynaa walaalayaal maanta Soomaaliland dhan baa gurmanaysa kii galbeed joogay iyo kii bari joogay Soomaaliland dhan waa mid dhibaatada ilaahay keenay waa midaysan tahay malaha dira waa ka dhagaysateen siday ugu gurmanayeen dadkii halkaa gaaray dira ee xataa bustayaasha la wadaagay maanta dadku waa u midaysan yahay abaarta ilaahay uun baynu baryaynaa ilaahay baa inaga dulqaadi karaa ilaahay abaarta inaga saaro ilaahay isagaa waaxyo abaarta inaga saaro ilaahay roob khayr qaba haynoo keeno oo degdeg ah oo dadkii baalka ku dhargaan. dhanka kale shacabka ku soo hayaamay deegaanada hoostaga degmada Qorlugud ayaa goor loo qaybinayay caawimooyinkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu u geeyeen ayaa ka dhawaajiyay ammaan ballaaran oo ay u soo jeedinayeen gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan sheegayna inay u yimi isagoo gacanta ku wada caawimooyinkii xisbiga Kulmiye soo dhiibay cid kale caawimooyin hore soo gaarsiisayna aanay jirin.